munaasabada lagu daafurayo macadka horumarinta iyo cilmi baarista Soomaaliya ee Sirda ayaa waxa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Puntland golayaasha kala duwan ee dawladda ganacsato iyo dadweyne kale ugu horeyn agaasimaha macadka Sirda ahna wasiirka hore ee deegaanka Puntland Guuleed Saalax Bare ayaa ka hadlay waxyaabaha macadkani uu qaban doono u baahan yihiin dadka xukunka haya iyo hay'adaha dawladda iyo dadka kale oo private-ka intaba in dhibaatooyinkaas taabanaya dhinac walba in baaritaan loogu sameeyo kadibna marka loo soo bandhigo tala soo jeedin iyo waxyaalo lagu xalinayo dhibaatooyinkaas taasi waxay kaliftay urashada ama fikirka inaan qorino in macadkan uu ku soo biiro macaahidii hore wadanka uga jirtay wuxuu wax badan ka geysan doona haddii Ilaahay idmo inuu baaritaan ku sameeyo dhibaatooyinka aan soo sheegnay qayb kamid ah kadibna marka aanu soo bandhigno talooyin lagu xalinayo dhibaatooyinkaas xildhibaan Cismaan Dalmar Xaaji oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Puntland ayaa madaxda xilka haysta ugu baaqay inay dalka wax ku soo kordhiyaan marka ay xilka ka degaan waxaan rabnaa madaxweyne markuu shaqada ka tago ciyaalka iskuulka u dhiga waxaan rabnaa wasiir markuu shaqada ka tago wuxuu oo kale isku dayaa laakiin ma rabno wasiir intuu banaanka ka yimaado markuu shaqada ka tagana banaankiisa ku noqdo macna sameynayso waxa macna noo sameynaya waxa weeye inaan ilbaxno oo ilbaxnimada aad Yurub iyo qarbi ku soo aragteen halkana la gaarsiiyo ugu dambeyntiina madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey ayaa soo jeediyay in taageero lala garab istaago macadkan si uu hadafkiisa u gaaro way wanaagsan tahay runtii cilmi baadhis dalama horumaro runtii haddii aan cilmi baadhis la sameeynin waxa uu ku xun yahay waxa uu ku wanaagsan yahay waxa uu ku xun yahay sidii loo hagaajin lahaa sababta keentay inaynu ku xumaano waxa wanaagsan in la sii kordhiyo oo barta ay taagan tahay laga sii kordhiyo waa ay fiican tahay shan arrimood oo ay saartay shantaba inay noqon doonto shaqadeedu waa shanta arrimood ee haddii xal loo helo horumar ummadda Soomaaliyeed meel joogtaba guud ahaan iyo gaar ahaan reer Puntland aad moodo inaynu ku horumarayno han noqoto mid aynu maskax ahaan iyo tala ahaan iyo dhaqaale ahaan mid walba aynu ku taageero dhammaan qaybihii kala duwan ee ka qayb galay munaasabada ayaa soo dhaweeyay macadka waxaana ay sheegeen inuu qaban doono hawl ay baahi u qabeen ummadda Soomaaliyeed Cabdirashiid Bashiir Honkebel TV Garowe.